haddaba waxaan rabnaa inaan furno DJI-ga waayo waa modem cusub oo ah DJI Osmo Mobile 4 waxyaalaha gudihiisa ku jiro waxaa ka mid ah DJI-ga magnetkii boorsadii bla 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 iyo waxyaalo noocaas okay wuu cusub yahay so inaan furnaa rabnaa waana sugi la ahay so waxaan u qaadanaynaa mindi wow وفرين بعد ما يطور صعب اوكي كان هذا ما سنتهي تنوديك اوكي maxaan sameeynaa marka waa fureyna meeshan ka furi lahayn raadinayna maahan okay tama yes inta waxa ku dhagan yahay geedkii okay haddaan caada u fiiqnaa okay بسم الله وهذه انت قاعد بساعة هذه ما انت وحاكو قرن استعمالك اوكي ماجنت كينا موبايلك كحري كرتيد DJI ga منيو بلا 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 ابلكيشن ستور اوكي waxa ugu horeeya boxka kana inta iska gelino waxa inoo haray this box kana waxa ku qoran create magnetic moment marka tookadii hore waa uu ka duwan yahay kan wuxuu wataa magnetic oo ah birqabad marka oo fiirinayna kan ayaan soo bixinaynaa soo arfayaan jacla markuu cusub yahay okay kan inta noo yaalo DJI ga waa kana impressive ma bixina may شوك مش هذا كجر كنا فيرينينا اوكي كنا فرينا مركا اوكي ترتيب فور ترتيب اوكي انت waxa inoo ku jiro qaybtan koowaad waxa inoo ku jiro boorsadii waxa arkeenaa inoo ku jiro boorsadii iyo kii marka gimbalka ku xiratid gacantaada aad sidatan ugu gashanaysid si aad gimbalka ugu qabato okay kan waa qaybta koowaad halka inoo dhig kan waa boorsadii oo dareemaysid inuu aad u adag yahay balse DJI Osmo Mobile 3 ga wuxuu wataa boorso laakiin kan kuma yimaado wax boorso ah marka dib ma lahan halkan waxa inooga haray magnetkii okay magnetkii soo bixina marka kan wax kale kuma jiro mana ugu baahni okay kan inta iska xir kan انت جيلي كان انت جيلي ولي كان كتبنا عملنا ماي اساتا لو ما باهنا كي بناك لو سو قبنا اوكي كان او باهنين انت اسك جيلينا اوكي waxay noo soo haray marka kan maxay ugu tala galeen kan waxa loogu tala galay geedkan aad arkaysid waa birtii magnetka ahaa oo laga rabay inuu qabto mobileka waxa la rabaa tusaale ahaan hadda halkan waxaan ku haysanaa S20 okay waxa loogu tala galay marka S20 ga markuu sidatan yahay tusaale ahaan si aan si fiican idin fahansiiyo okay kan inta dhig albaabkan aan soo xirano okay albaabkan aan xirano okay waxay ugu tala galeen marka mobilka inaad inta dhigto kana aad u saarto I think yes sidan inaad u saarto aad kula jimayso marka cabirka saxda ah waxaan u maleynaa muuqaalka shaashada kaaga muuqdo inaad ka arkaysid qaabka loo saarayo marka wuxuu wataa sharootadan yar mar walba aad saaraysid sharootadana fiiqe waa kula dhijinay horta booska cabirka marka qaadatid waad kula dhijinaysaa markaad kula dhajisid oo okay saan uu kula noqdo oo sharootadan aad fiiqdid inta oo cabirka saxda kula noqdo kula dhago kadib kanaad qaadaysaa oo ah midkan birta yarta ah ayaad qaadaysaa meeshan dhibicda ah waxa u jeedaa shaashada meeshan dhibicda ah ee ku aadan tahay waxa laga rabaa inay aado meesha kaamirada xigta marka kan ayaa sidatan u gelinaysaa waa ku dul deynaysaa mana hadda ma sameynayno laakiin
qaabka ugu fudud ayaa rabaa inaan kuu sheego. sidan ayaad u saareysaa markaa sidan u saartid. okay qaabkan processka markay amaraysid waxaa qasab ah mobilkaaga inaadan isticmaalin ilaa iyo 14 saacadood ilaa iyo 12 saacadood inta uu ka dhigayo. si aad u dhijin lahaydna wuxuu wataa inta I think gate inuu wato aan furno aan soo bixino waa kana. inta maxaa kaloo ku jiro okay book I don't need readme I don't need this guide saade. okay halkan wuxuu ku wataa bacyar oo ku jiro maxaa la dhahaa geedkii ku sahlayay inaad ku dhajiso magnetka halkaana. okay wuxuu ka kooban yahay waa labo waxay ugu talagaleen haddii aad laba mobile oo kale aad kala saarto. marka waxaan kugu waanin lahaa inaadan marnaba ku dhijinin qolofkaaga waayo qolofka marka qaar waad ka maarmi kartaa. kana waxaa loogu talagalay mid markaad ku dhajisid aadan mar dambe aadan isticmaalin oo aadan ka bixinaynin oo aadan iska tuuraynin laakiin mar walba mobilka anytime waa wadataa. okay qaabka u shaqeyn doonana waan arki doonaa muuqaal ayaan ka diyaarinaynaa insha Allah balse waxaan rabnaa qaabka ugu fudud aad ku fahmi kartid. ugu horreyn waxaa la sameynaa mobilka ayaa sidatan u toosinaysaa wuxuu wataa warqad ay ku qoran tahay 1 and 2 waa inta badan sida dhalooyinka loo saaro oo kala waaye. kana 1ka fiiqe meesha ku tirtiraysaa 2ga fiiqe kan waa alcohol ku jiro ama alcohol sida qofku u yaqaano. kana waa dray warqad yar oo cadaan ah soo marka kana sidaas u marinaysaa kana waa ka daba marine meesha markay qaleel ku noqoto kanaad qabanaysaa waa fiiqaysaa waayo waxa ku dhagan sticker waaye uu fiiqmaya. halkaan marka sidatan ugu dhajiso uu okay ay isdhaahdo aleelehe waa okay uu warqada sidatan ugu dhago kadib ayaa waxa qaadaysaa kan marka sidatan cabirka aad ku saxdo okay aad ku dhahdo aleelehe intaan waa okay aad dhahdo. sidoo kale inta wuxuu wataa warqad yar haddii aad dareemaysid I don't know ina arkaysid in kale warqad yar wataa marka warqadaas fiiqmaayo iyo waxa isku dhagaayo warqad kale inta markay ka soo fiiqmo kan markay fiiqmato warqad kale inta ku jirto ayaa isku dhagayso. marka labadan warqadood ayaa hadhow markay isku dhagaan waxa laga rabaa inay qaadato muddo dhan adiga 12-13 saacadood. marka aniga waxaan kugula talin lahaa hadii ay dhacayso inaad mobilkaaga ku dhagsanaysid in aad samayso habeenkii oo kale inaad shaqadan qabato habeenkii aad mobilka kaga jiifato subaxii aad mobilka isticmaasho ileen 8 saacadood 9 saacadood ilaa iyo subaxii 2 saac I think inay ku filan tahay. marka qaabkaas ayaan sameynaynaa. okay insha Allah iyadana muuqaalan ka diyaarinaynaa. waxaan arkaynaa inuu intaas oo warqad ka kooban yahay gooni ayaan u bixinaynaa kana gooni ayaan u bixinaynaa. okay kana warqadiisa waa halkaas inoo dhig kan inta inoo dhig mobilkeena inta inoo dhig. okay mobilka aan ku celino coverage-kiisa. okay good. okay gimbalkii waa kan marka kana furanaynaa si aan u soo baxsano hoosheenii ee inoo socotay. okay keyboardka iska xiriir. okay halkan waxaa inooga cad in uu DJI-ga inoogu jiro. halkan waxaa ku arkaysaa inuu wato lugihii oo lagu istaajin lahaa tarbiyadiga sida DJI Osmo Mobile 3ga laakiin waxaad dareemaysaa in quality-giisa xataa uu ka duwan yahay kii hore because of tookadan waxaad dareemaysaa in uu yahay cadaan balse halkii hore wuxuu ahaa gray. marka insha Allah waxaan diyaarinaynaa muuqaal ah comparison labada Osmo Mobile 3 iyo Osmo Mobile 4 farqiyada u dhaxeeya. okay kanta iska dhiganaynaa. okay halkan waxaa inoogu jiro cable-kii oo ah USB oo halkaana to type C. marka fiiladan important waaye yuusan ka dhumin waayo laba shay baa isticmaali kartaa inaad DJI-ga aad ku kaarikeyso inaad DJI-ga ka qaado haddana aad ku kaarikeyso mobilka labadaasba waa ay ku qabanaysaa. kan intaan dhiganaynaa. okay maxay noo hara marka magnetic waxa arkaysaa kan haddii aan dhaan waa kala jiidaynaa you never believe quality-ga waa dareemaya wallah. okay waxaa arkaysaa inuu ku leeyahay kamerada ku aadi dhinaca ah dhinacan kamerada hamarto. okay waan usoo laabanaynaa marka. okay wuxuu inoo wataa haddana tusaale ahaan mobilada iPhone-ka oo kale ama sida Android-ka oo kale Android S8 wixii S8 ilaa iyo S9 wixii saas ah uma baahnid inaad isticmaasho kan waayo kan ayaaba ku filan inuu gaaro maxaa la dhahaa qaybta gadaale. tusaale ahaan
kan waxa uu qabto ayaan ku sheegayaa. Okay, aan ka bixino. Okay, kan wuxuu qabanayaa marka hadda aan dhaho kan ayaan halkan ku xirayaa. Okay, kan ayaan halkan ku xiray, aan si fiican isla socono. hadda waxaan ku xiray halkan, waa arkaysaa. marka intaan isdhihi karo dhexda ku aadi, waa uu ku aadan yahay. Okay, I think dhexda inuu ku aadan yahay. Okay, marka kan sidatan aad u aadisid, waa aad u jeedaa wuxuu maray qaybta kamerada ayuu maray, oo arkaysaa. Okay, kan hadda waxaad dareemaysaa meeshan inuusan wax space uusan u dhaxaynin. laakiin mobilada qaar sida S8 ka oo kale waa uu ka slim badan yahay. S8 Plus ka oo kale saan oo kale ma ahan, wax yar zaid ugu yar yahay. marka iPhone-nadana waxaa kamid ah tusaale ahaan iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2 oo kale wuxuu u baahan yahay kan. marka waa sharooto yar oo fiiqmayso, ka bacdi waxay ku xirmaysaa qaybtan gudaha ee halkaana, si aan asna ku tuso. Okay, asigana wuxuu ku xirmayaa qaybta halkaana ayuu galayaa. sharootadan yarta ayaa fiiqayso, oo ujeedaa sharootadana fiiqe. marka aad fiiqdo halkaan aad ku dhijinaya. marka waxaa muhiim ah DJ sida uu qoran yahay, waa arkay umaleynaa DJI-gan sidan uu u qoran yahay iyo kan inay isku nooc ahaadaan. marka waxaad dareemaysaa markuu kan ka qaadan yahay inuu yahay slim, laakiin kan marka uu saaran yahay inuu yahay mid oo xogar xajmi soo yeelanayo, si uu hadhow mobilka uu u noqdo wax si fiican macnaha u xadidan. no matter af Soomaaliga, laakiin muhiimadda inaan fahnaa ah. Okay, kan waxaan sameynaynaa marka kan ayaan qabanaynaa. Okay, kan qabo soo jiid halkan keen. wallahi you never believe, even hataa waa kana waa ujeedaa anytime mobilkaaga sidatan waa u isticmaali kartaa. Okay, laakiin ani ahaan waxaan aad u jeclaan lahaa kan halkan yaalo inaan halkan ku dhagsado. mina subaxa wallahi very magnet. Okay, ani waxaan jeclaan lahaa kan inaan ku dhajiyo halkan, ama steenka aan hadda ku duubayo muuqaalka inaan ku dhajiyo kan, kadibna hadhow haddii aan u baahdo kaliya wax leeyahay DJI-ga soo bixi isku xir. Okay, kan intaan u taagnaado waan usoo laabanayna cashirkaas dheerka ah. Okay, waxaa inoo soo haray marka DJI Osmo Mobile 4. Okay, aan soo bixina marka. I love sida uu soo carfay. waxaad dareemaysaa in xataa you see, waxaad dareemaysaa in I think dadka isticmaala Samsung Watch 2 iyo 3 iyo waxaad dareemaysaa in wax yar kushineeta camal feeri dhag ayuu leeyahay. I don't know inaa maqlaysa in kale ma maqlaysaa, may ma umaleyna inaa maqli kartid. Okay, baakadkaan iska bixina marka. Okay, this cable iska dhig inta dib malaha. Okay, boxki waan ka maarana, wax kaloo ziyaada ma ku jira aan fatashnay. Kada kor u qaadno. wax kaloo ziyaada ku jira. Okay, kan important waaye, dadka badankooda ma oga. kan aad arkaysid horta looguma talagelin inaad furto, laakiin inuu sidaan ugu jiro oo alaabtaanna uu kula dhex jiro waayo very important u tahay. wuxuu ka ilaaliyaa waxyaalaha la dhaho uumitada ee galo gimbalada dhalooyinka. waxaa arkaysaa geedkan in shaqo badan uu qabanayo. Okay, kan halkaan aan iska geyno, uma baahnin. Okay, naga tuur dhakan. Okay, this is the DJI. Okay, waxyaalaha uu wato waxaa ka mid ah inuu kuu sheegayo badhanka ugu horeeya, wuxuu kuu sheegayaa haddii uu u baahan yahay software update. badhanka kaloo ku xigo asna wuxuu kuu sheegayaa battery percentage-kaaga waa boqolkiiba I think boqolkiiba 40, boqolkiiba 75, boqolkiiba 100. saddexdan dhibcood qaabkaas u qabanaa. marka haddii aan hal mar taabto waxaa arkaysaa inuu ku jiro boqolkiiba 75 batteriga. Okay, haddii aan xoog u riixana waa qaybtii caadiga ahayd ee markaas qabanaysa. Okay, asiga wuxuu kaga fiican yahay waxaa waaye gimbalada kale boorsadaada sidatan waa arkaysaa gacantaada kula jin yahay, macnaha cabsi iyo murug kuma galayso. Okay, sidoo kale wuxuu leeyahay badhamo yar yara oo halkaana sida shaashada kaaga muuqata. badhamo yar yar uu leeyahay. badhamadaas haddii aad isku aadisid I'm sure geedkaaga inuusan wax cilada iyo wax problema uusan la kulmeynin. sidoo kale halkan waxaa ku arkaysaa inuu leeyahay badham kale oo asigana markaas u sheegayo in macnaha uu
magnetiga ama meesha loogu talagalay booskiisa inuu taagan yahay. Okay, inta wuxuu ku leeyahay waa jagi haday aan idin sheegayay oo USB-ga halkan ayuu galayaa, kadibna waxaad gelinaysaa chargerka markii aad rabtid inaad charger garaysid. qaybtan kale halkan wuxuu ku leeyahay USB oo mobilkaaga hadii baterigiisa uu ka dhaco oo kale in aad USB-ga halkan inaad geliso kadibna aad ku kaarikeyn karto mobilkaaga. marka waa arkaysaa waayo asiga battery power bank kala waa sinaftarkiisa. marka laakiin sometimes ha isku haleenin, always isku day inaad qaadato power bank extra waayo waxaan electric waaye sometimes adigoo buuxo aad ku ogeyd ayaad haddana arkaysaa inuu ka dhamaanayo, okay waa idinka raali galeynaa saaxiibkii ay soo wacoyo. okay sida tan markii ay tahay marka maxaan sameynaynaa, waxaan arkaynaa marka qaabka ugu xirmaayo. okay kan waxaa la rabaa marka facing up, kan inuu kor aado ayaana laga rabaa. kan aad halkan ku arkaysidna inaysaan ila fiiriya intaan wax ka dhici doono. okay waxaa arkaysaa marka inuu noogu xirmay. okay wallahi xoog uu leeyahay. okay fiiriya sida u qabsanaya ba ka dareemay marka fiiqaysidna wallahi waa dareemay. okay gees hadaan dhaho ma ugu xirmaa maya, waxaa arkaysaa inuu kala sikanayo. haddii aan dhaho saansaanna waxaa arkaysaa inuu kala qalqaloocanayo. okay laakiin mar walbo calaamada dhibicda halkaana iyo calaamada halkan aadayso ayaad sidan isugu aadinaysaa. okay maxaan sameynaynaa marka flip waan kala furaynaa. wow okay waa daaraynaa markii inuu celin karo mobilkeena iyo in kale. bismillah, let us game begin. unbelievable, waa ii daarma saaxiib, waa ii daarma wallah. okay waa sidii caadiga double click haddaan siiyo horizontal ama landscape qofba sida u yaqaano, vertical ama portrait qofba sida u yaqaano. marka waad dareemaysaa mobile gimbal ahaan inuu maasha allah uu ka fiican yahay kii hore waayo tookadan waxay aad u soo ballan qaadeen active track xataa inay kasoo kordhiyeen tookadii hore. waad dareemaysaa sidoo kale gacantaada in laakiin caagan iyo qaabkan waa isla sidii un. okay 1 2 3 inuu sleep qaataa la rabaa. wow 1 2 3 wow okay marka waan iska daminaynaa. okay asiga marka waa ujeedaa automatically waa sidan awoodad u leedahay marka mobilkaaga shaqadii aad rabtay inaad ka qabsatid inaad kasoo qabsatid automatically. macnaha mobilkaaga haddii aad u baahatid kii hore wuxuu ahaa inaad furto kala furfurto aad kula saxdo haddana cabirkii sizekii wixii aad la saxdo stake a while. kan waxaa waaye qofa kusoo wacay teleefonkaaga siibo soo dhamayso, markaad dhamaysatid qabo cabirka hubi that's all, hore hooshaada ka wado. marka waa dareemaysaa in uu ka features badan yahay kii hore oo ahaa DJI Osmo Mobile 3ga. marka insha allah iyadana waxaan kasoo diyaarin doonaa muuqaal kaasoo aan ku sharxeyno DJI-ga, kaasoo aan ku sharxeyno duubistiisa iyo waxyaalaha uu markaas ka saacidayo mobilkaaga iyo programkii markaas asiga ahaan uu ku shaqeyn lahaa. marka adreemisa okay saan u dhigma horta asal. okay saan u dhigma saas u dhigma. okay waa arkaynaa marka inuu sida hore ahayn uu ka fiican yahay quality ahaan qaab ahaan. marka asiga wuxuu kaga duwan yahay waxaa waaye macnaha 360 degree maahan uu ka yar yahay waayo halahan ma dhaafayo waayo waxaa la rabaa tusaale ahaan mobilka markaa sidatan aad u duubaysid in uu sidatan usoo wareegto uu haddana maanta dhan saan usoo wareeganayo sida Ronin S oo kale, Ronin SC oo kale. waa arkaysaa marka maanta dhan sidaas ayuu u wareegaya, laakiin kan waa 3 axis kaliya waay. sidoo kale waxay kasoo bedeleen qaybta ah joystick-ga waayo tookadii hore iyo tookadan isku mid ma ahan. markaan gudaha waxaad dareemaysaa sida controlkan oo kale caagaas caman ayay halkan kusoo dareen. marka waad dareemaysaa inay wax badan ka bedeleen. marka insha allah waxaan ka diyaarinaynaa muuqaal. waxaan u maleynaa unboxingkii ahaa DJI Osmo Mobile 4
halkan ayuu inoogu dhan yahay kaliya waxaa inoo dhiman inaan ku duubno muuqaaladii iyo qaabkii markaas loo isticmaali lahaa